warbaahinta dalalka carabta ayaa waxa ay si weyn uga faalloodeen heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee lagu maalgelinayay dekedda magaalada Berbera. Heshiiskaas oo dhex maray Jamhuuriyadda Somaliland oo yeelan doonta 30% iyo shirkadda Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee DP World oo yeelan doonta 50% halka dalka Ethiopia uu 19% yeelan doono heshiiska lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera. Warbaahinta carabta ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi qaarkood inuu yahay heshiis aad uga faa'iideysan doonaan dalalka gaadhay. telefishanka Al Jazeera qaybta ku hadasha luqadda Ingiriisiga ayaa waxa ay sheegeen in heshiiskaasi uu yahay mid dawladda Itoobiya ku yeelan doonto 19% iyadoo Itoobiya sidoo kale noqon doonto dalka ugu horeeya ee waxyaabaha dekedaasi laga dejiya ay dalkeeda u gudbi doonto. telefishanka Al Jazeera waxa uu sii yiri isagoo hadalkiisa sii wata in dekedda Berbera oo ah deked yar oo markii hore xoolaha oo kaliya laga dhoofin jiray la filayo inay noqoto deked caalami ah marka la casriyeeyo isla markaana isku xidha dalalka aan dekedaha lahayn ee ku yaala bariga Afrika iyo waliba dalalka ku yaala Khaliijka Carabta. Arab News oo ah isaguna warbaahin dalalka Carabta laga leeyahay gaar ahaan Imaaraadka ayaa waxa uu sheegay in heshiiska lagu maalgelinayo dekedda Berbera uu yahay mid 19% shirkadda DP World ay ka iibisay saamigii 65% ee ka heshay dalka Itoobiya. Dalka Itoobiya ayay sheegtay shabakadani in ay noqon doono dal isagu fuliya ama dhisa jid dheer oo isku xidhi doona magaalada Berbera iyo waliba magaalada Wajaale ee ku taala xuduudda. Itoobiya ayaa noqon doonta dal ka faa'iideysta heshiiskan isla markaana waxyaabaha uu dhoofinayo iyo waxyaabaha uu la soo degaba dekedda Berbera marin doona. Wargeyska lagu magacaabo Khaleej Times oo isaguna dalalka carabta laga leeyahay ayaa waxa uu tibaaxay in Itoobiya ay noqon doonto dal ka faa'iideysta heshiiskan ay dhex maray Somaliland, DP World iyo dalka Itoobiya. waxa wargeyska Khaleej Times uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiimad gaar ah ku fadhiya isla markaana la filayo in lagu casriyo dekedda Berbera. Sidoo kale waxa uu Khaleej Times intaas ku daray in heshiiskan uu qayb ka noqon doonto in la sameeyo suuq ka caagan cashuuraha oo la yaqaano free zones kaasoo ah suuq badeecadaha ka yimaada dalalka Khaliijka Carabta halkaas la keeni doono isla markaana u sii gudbi doona dalalka Afrika. Sidoo kale telefishanka Al Arabiya ayaa isaguna waxa uu ku nuxnuxsaday inuu heshiiskan yahay mid oo ay qalinka ku duugeen Somaliland oo uu matalayay ama u saxeexay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, wasiirka gaadiidka Itoobiya oo isaguna dhinaca Itoobiya u saxeexay iyo madaxa ama maamulaha guud ee shirkadda DP World. waxa uu sheegay telefishanka Al Arabiya in heshiiskani uu yahay mid lagu horumarinayo dekedda Berbera isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dhinacyadani. heshiiskan oo sanadkii 2016 hore loo gaaray ayuu sheegay Al Arabiya in shirkadda DP World oo markii hore lahayd 65% inay qayb ka mid ah sheerkeeda ama saamigeeda ay ka iibisay dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa markii hore waxa ay aad u isticmaali jirtay 90% dekedda Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo oo la filayo in Itoobiya ay u soo wareegto ama ay wax badan kala soo degto dekedda Berbera. shirkadda DP World iyo Djibouti ayaa dhawaan isku dhacay kadib markii dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ay sheegtay inay ka baxday heshiiskii ay kula jirtay DP World. waxa la filayaa in heshiiskan saddex geesoodka ay dhex maray Somaliland, Itoobiya iyo shirkadda Imaaraadka laga leeyahay DP World inuu xoojiyo xiriirka ama isticmaalka dekedda Berbera ee Itoobiya. Wasaleebaan Ibrahim Xaashi, Bulsha TV, Hargeysa.